dansaday dhulkeenana hagadaadina isticmaal ku dansaday dhulkeenana hagadaanina awogeen dhulwaa uga tagina awogeen dhulwaa uga tagina usoo shubin amaan bidii usoo qabin amaan dhamaa usoo marin gobanimo ma dheebsado mandii usoo shubin amaan bidii usoo qabin amaan dhamaa usoo marin gobanimo ma dheebsado usoo shubin amaan bidii usoo qabin amaan dhamaa usoo marin gobanimo ma dheebsado mandii usoo shubin amaan bidii usoo qabin amaan dhamaa usoo marin gobanimo ma dheebsado mandii usoo qabin amaan dhamaa usoo marin gobanimo ma dheebsado gobanimo ma oo bilaabanayna 5 qof baad i daawanayso salaamu calaykum wa salaam ayaa dhamaan dadka i daawanaya iyo dadka ay gaari doontaba 5 qof day meesha uma soo galin 5 qof bal share gareeyo meelaha gruubyada iyo galiya share gareeya dadka soo badiya bal isku tago bal dadka soo badiya 5 qof day meesha ma aan soo galin 30 qof bal 200 soo gaara markaas ay idin sheegay waxa idin sheegi lahayd 200 soo gaara markaas ayaa sheegay waxaan sheegi lahaa maanta wax kala ka hadlayno Soomaaliya way weyn tahay maalmahan waxaan focus ka saaraynaa Puntland waxaan ka hadlaynaa Puntland oo dhanna focus ka maanta saarayno waxaan ka hadlaynaa tan guud ee Puntland ah waxa way cadaalad daradeeda mar kale ka hadli doonaa meesha ka jirta tan gobolkan bari ee gobolka Soomaaliya ugu weyn ah la dhihi karo waa meesha ugu badan ee cadaalad daradu ay ka dhacdo Puntland ayaan waxa way maanta ka hadlaynaa taasaan ka hadlaynaa insha Allah biidhnilaahi kariim marka aan ka hadlayana waxa weeyaan anigu
waa la yiri iyo saasaa lahaa iyo website baan ka akhristay iyo qof baa iisoo gudbiyey xogtaas intaas toona anugu ku hadli maayo intaasoo sanaan joogaa weligay kama aana hadal wax noocaasa waayo waana xog u hayn kama hadli karo laakiin wadankii waa tegay waxaanan ka hadlayana waxaan soo arkay mas-uuliyiintan aan ka hadlayo wadadan soo wada arkay wadadan wada sheekeysanay wallaahi bilaahi inta aan idinku leeyahayna waa in aan ku iri oo u sheegay oo igu wada riyaaqeen oo waxa weeyaan aan ku wada sheekeysanay oo waxa weeyaan aan waxaas oo cadaalad darraa oo meesha ka dhacay aan kulli ku wada iri war waxaan sidatan adeer intaa xishootaan bal sidatan waxa loo dhaamo ma garateen marka alla sheer gareeyo barnaamijku waa barnaamijka waa sii socon doonaa cadaalad darrada Puntland waan ka hadlaynaa Soomaaliya waa ka hadli doonaa laakiin focuska maalmaha waxaan saarnaa tan Puntland cadaalad darrada ka jirto aysan dadku waxa weeyaan dadka way ogsoon yihiin dadka Soomaaliyeed laakiin dadka reer Puntland ayaa maldahayo oo waxa weeyaan waxa la saaray maldahaad inaan laga hadal marka waan ka hadlaynaa waxa way wixii jiraan sheegaynaa ilaa maamulka meesha ka jiro oo waxa kan sidan wax ka bedelo kuwa hor waxba kama bedeli jiray laakiin bal inuu taladeena qaato waxaan jeclaan lahayn in bal wax laga bedelo dibna la iskugu noqdo hadda xilal badan oo la bedelay baa jiro Puntland waxay ka kooban tahay goboladii rasmiga ah ee Soomaaliyeed waa 5 gobol sida ay sheegato iyo degmada Buuhoodlo gobolka Togdheer ka tirsan cadaalad darradu waa ka jirtaa laakiin gobolka bari waa gobolka ugu weyn waa magaalada degada leh waa magaalada Elaboor kale magaalada Boosaaso cadaalad darrada ugu badan waxay ku dhacdaa dadka gobolka bari degan oo waxa weeyaan ku nool Puntland marka waxa weeyaan magaalada degadaas dadkaas ay leeyihiin oo dadkaas meeshaas degan ay xaq u leeyihiin waxa weey wax ay ka yihiin male degada waan booqday degadii haddaan booqday waxa weey wasiirka dekedaha ayaa fadhiya waana degad DP World laga iibsaday marka horeba oo kiishka imaaraadka ka imaanaya ama Iiraan ka imaanaya waxa weey ninkaas DP World meesha madaxda wax bay u qoran tahay wasiirku wax uu qabto ma leh xafiiskaas uu iska fadhiyaa duhurkan waa iska rawaxa meesha qaadka uu ku sugaa gobolkan bari dadku beel walba waxay leedahay degaan mudug beelaa degan gobolka Nugaal beelaa degan gobolka bari beelaa degan Sool iyo Sanaagna beelaa degan dawladdu gobolkan xilligii Cadda Muuse waxa gobolka kale xilliga Cabdullaahi Yusuf gobolkan waxa loo kala qaybiyay Karkaar iyo gobolka bari oo 2 gobol baa laga dhigay xilligii Farola hadana waxa laga dhigay 3 gobol oo waxa loo kala qaybiyay Karkaar iyo Gardafu iyo bari muhiimadda laga lahaana waxa weeyaan oo meeshaas inta badan lagu kala qaybinayo dadkan inaysan is ogaan maadaama meeshan beelad badan degan tahay inaysan dadku is ogaan oo waxa weeyaan wixii meeshan laga sameysanayo cidna ogaan ee cid walba waxa weeyaan meel lagu mashquuliyo marka gobolka bari horta taliyaasha ciidamada oo dhan taliyaal ciidamada oo dhan 3 taliye oo wala ay ku xigeenkeeda ay yihiin beeshan qoyska madaxweynaha mooyaane inta taliye ee gobolkan bari ka shaqeeya waa beeshan madaxweynaha iyo dadkan ay u afduuban tahay Puntland taliyaha xabsiga waa booska kaliya ay ka badbaaday xabsiga Boosaaso waxa haya nin waar Saleebaana baatariye ka ah laakiin waxa ku xigeen u ah juqraafi oo Cusmaan Maxamuud wuxuu u yahay oo wili bahdira baa wuxuu u yahay ku xigeen oo ku maamulo waxa weeye shaqadana inta badan ninka qabto waa juqraafi kuna magacaaban shirarka jaraa'id qabto idaacadaha meel walba ka hadlo shaqada xabsiga hayo dhamaan kormeerada iyo wax walba sameeyo waa ninkaas juqraafi lagu sheegayo waan Elaboorkan tagay Elaboorka magaalada Boosaaso waa Elaboorka ugu weyn Puntland raanweyga ugu weyn Puntland meesha ku yaal maareeyaha iyo maareeya ku xigeenka wixii waa dadka ka soo jeeda gobolka bari ee xafiiska ku jiro laakiin taliyaha Elaboorka waa reer Garowe markii aan weydiiyay waxaan aan ku iri meeshan federaal weeye meeshan federaal weeye dadkii lahaa meesha tan meeye taliyahan sidee uu ku yimid meeshan uma dhalan kuma dhalan waxa hadaa haduu ku dhashay oo reer Boosaaso yahay waa aqal galbe noqon lahayd qof reer Boosaaso waa la geel lahaa laakiin Garowe laga soo magacaabay Cabdulle maxaa Algaas baa keenay
oo meesha ku naasnuujiyo ciidanka eelaboorka controlo iyo wax walba oo control oo meesha ka dhacayo waxa way qofka maamulayo waa isaga taliyaha eelaboorka waa reer Garowe ilaah baa idinku dhaarshay ma dhici ka dhaa taliyaha eelaboorka Garowe maxaa abshir hamaan in qof reer bari loo magacaabo oo waliba caasimadda Puntland ku magacaaban ilaah baa idinku dhaarshay reer Puntlandow bal cadaalad darada aad fiirsanaysaan oo aad waxa way xariga ku xirxirantiin taliyaha magaaladaas caasimadda Puntland oo ku magacaaban oo Garowe in taliyaha eelaboorka laga dhiga nin reer bariya ma Garowe nabad buu ku joogaya mise waa la yeelaya mise reer Garowe yeelaya ilaah baa idinku dhaarshay oo cadaalada u heelaya nimayo kowda eelaboorkan Garowe waxa laga waayay war heede eelaboorkan Cabdullaahi Yusuf loogu magac daro bay diideen reer Garowe in Cabdullaahi Yusuf loogu magac daro bay diideen in waa hore dhintay oo la ilaaway oo waxa weeyaan xilliyo hore ahaa bay keensadeen oo leeyihiin waa reer Garowe ma fahanteen degadan imid waa degada waa ishi dhan ee dhaqaaleed ee reer barigu lahaayeen magaaladaas kowde taliyaha degada waa reer Garowe isna nuur baa lahaa degadan galay waxa way reer barigu waa la canshuuraa banaanka wada tugayin dooyahoodii baa la wada canshuuraya wiilkaas u soo baxo canshuur buu ku dhuftaa waxa way ciidanka meesha dhan isaga haysto wixii galay wixii ka baxayo totally-ba waxa weeyaan waxa haysta reer Garowe Cabduwali maxaa cali gaas baa keenay markii ka horeeyay reer mudug baa haystay Cumar Axmed baa haystay Maxamed Yara haystay oo waxa keenay Maxamed Yare waxa keenay Faroola keenay iyo waxa keenay Cabdullaahi Yusuf agaasimahuna waxa weeyaan isna waa Cumar Axmed oo waxa weeyaan reer mudug weey ma fahanteen marka waxa ka sugaynaa degada Garaacad waa la dhisayay in waxa weeyaan bal qof reer bariya degada Garaacad bal loo dhiibo baa sugaynaa taliyaha cashuuraadka meesha kaliya oo aan ku arkay reer bari inay si cadaalad u joogaan meesha kaliya waa cashuuraadka biriga waa tagay cashuuraadka biriga waxa haystana Cali Salmaan waxa lagu bedelay booski Jigana lagu bedelay Jigana markii uu waxa way wixii meesha joogay uu cunay oo nimankan uu iska celiyay bay bedeleen waxay dhaheen Jigana Cali Salmaan waxa weeyaan naga bedela nin ayaga ay wataan oo maqaar saari keeneen ku xigeenka waxa ah nin cawliyahana Cali Salmaan cawliyahana wuxuu yahay gudoomiyaha ku xigeenka waxa ah in Maxamed Bangax baa ah oo wuxuu yahay nin Suuqroon oo Ali Cabdiraxmaan weeyaan waxa joogay niman badan oo amaale iyo wabeeneeye iyo aduu reer bariya ma fahanteen waaya waxa ku wasaaradan meeshan waa meeshii dakhliga cashuuraadka dhameede waxa weeyaan nimankii Maxamuud Salaam meeshan kama maqnaan karaane ma micna ii sheegtaan shacab ali keenay meeshan fadhiistay war micna ii sheegan ku yiri waxaan reer bariya meesha tan lagu ma aaminaayay micno ii sheega wallahi billahi anoo sidii u fadhiyo baa waxa soo galay afdalow oo wuxuu yahay ninka haystaba show meesha afdalow baa haystaba waxa la galay salaan iyo girir taliiba yimid afdalow meesha isku salaanay war afdalow haye maxaa haysa fiican waxaan ku yiri maanta waaba yaabanaaba meesha cashuuraadka dhameed baa niman reer bariya kulli lagu wasafay wax macquul gal ma noqon ka dhee show meesha aan nimanka ku haysto oo ku maamulo wuu qoslay wuxuu ugu yiri wadi xagee ka tagay xagee nooga tagay buugiye waa fiiri waa intee taliye marayna saddex taliye taliyaha bangiga waxa haysta nin Bahdir Cusmaan Maxamuuda baa haysta waxa la dhahaa Maxamuud Qalaf waa is aragnay baa haysta taliyaha bangiga taliyaha qaybta waxa haysta Cusmaan Maxamuud taliyaha traafikada waxa haysta in aadan fariin baa haysta Cusmaan Maxamuud baa haysta taliyaha controlka waxa haysta odo warsangariya haysta lagu maamulo waxa ku maamulo mid Cusmaan Maxamuud wuxuu ku yahay ku xigeen oo ah oo qarda ka yimid taliyaha maxkamadda waxa fadhiyo Ciise Maxamuud baa fadhiyo waxa fadhiyo Reer Garowe taliyaha birmadka waxa fadhiyo Cusmaan Maxamuud taliyaha cashuuraadka afdalo waa fadhiyo turbutaariyada waxa fadhiyo Cusmaan Maxamuud الله أبارك بين تريها إلى بورك يا حرسك وتاسوش شيء لبده عيسى محمود بافريو هرت واحد تريها أو ماشى سر البري كل يتوانك تريه وتريها حرسك تريها إلى بورك تريها ترافيك كذا تريها تربطارية تريها عشوراتك تريها بنجيجا تريها قيبتا تريها CID وانس أرجني السنة وان رقرود وعيسى محمود وي وحكي يعني سيد عبد الله الدنيا بحد كياني
taliyaha controlka, taliyaha maxkamadda waa iyaga, taliyaha bangiga waa iyaga, taliyaha birmadka waa iyaga, taliyaha traafikada waa iyaga, taliyaha cashuuraadkana waa afdalow oo ilaah baa idinku dhashay salax noorway ku dhashay oo 700 kilomitir boos u jiro, waa 750 kilomitir bay boos u jirtaa. ma garateen nin ku dhashay baa wuxuu maamulayaa cashuuraadka dadkan xijigoodii iyo beerahoodii iyo kalluunkoodii, wiilkaas maamulaya meesha fadhiyo oo 10 jeer lacag taluunsaday oo mar qaybta loo dhiibay marba meel loo dhiibay kowdha. marka dadkan waa sixran yihiin, dadkan wareer dadku ma sixran yihiin baan ku hore, dadkan maxaa ku haysataan nimayo kulli waa is aragnay niman taliyaalan is aragnay waxay u dhaheen waniyo dadka xafiisyada ku jiraan bay dhaheen gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada waa iyaga xafiisyadaasi ku jiraan, annaga waardiyeena dhaheen dadka isma waardiyeyn karaan, wixii ciidan oo waardiyada iyo tiknika waa annaga. dadkan xafiisyadooda iskaga jiraan mukeyfkaas ku baxayo de waa carabta loo shaqeynaya igu dhaheen. war waxaan ku yiri haddii de carab loo shaqeynayo ay yihiin waa fiican yihiin, dadkan bal waxa ku sameysaan amar ku taagleenta inay wadada u shaqeynaysaane amar ku taagleenta ka daaya kowde. gaarigii beensale xoog baa looga fujinayaa, weliba dadka la yaqaan ee ganacsatada ee mas-uuliyiinta baa wallahi xoog intii looga diiro oo waxa weeyaan kana hadda maalin waxaan xasuustaa duqu-xigeenka boosaaso baa xoog looga diray traafikada yaa waxaa ka diray wallahi wiil yariisa ka diray oo staafka taliyaha qaybta ah hotelkan goolis agtiisa gaari waan watay meeshaan marayay. war maxaa jiraan ku yiri ana xaqudheeda bensel bay saarneed kowde maxaa dhacay waan ku yiri aniga waa lisoo hujumay war gaariga dawladda iskale waan ku yiri gaari dawladeed weey ma garateen bax waa la yiraahdaa. marka meeshan waxa weeye dadkan waxa weeye degadiina gacan uguma jirto, eelaboorka gacan uguma jiro, eelaboorka maamulaha iyo ku-xigeenkiisa labaduba waa reer bari waxay isaga jiraan gudaha, taliyaha iyo ku-xigeenkiisa labaduba waa reer garowe meesha maamulayo, taliyuhuna waa reer garowe, taliya ku-xigeenkuna waa reer mudug. waxa meesha ka soo baxayo iyo cali ismaaciil cali maxamed ismaaciil adar oo ku salaamaya salaamullahi calayk. waxa meesha ka soo baxayo waxa weeyaan waxa amra taliyahaas eelaboorka. dadkan meesha waa iska joogaan isku duwayaashan ka hadlaynaa 3 isku duwe oo gobolka bariya, 4 isku duwe oo gobolka bariya, waa 18 isku duwe wey. 8 isku duwe oo gobolka bariya ayaa beelii kale loo qeybiyey, 10 kale waxaa haysta qoyska madaxweynaha. nin baa maalin wada sheekeysanayo wuxuu igu yiri iniyo waxaa liisoo magacaabayaa madaxweynaha hadda markuu yimaado taliyaha eelaboorka ama degadaa ligu soo qoraya buu igu yiri. waxaa ku yiri iniyo degadii eelaboorka waa lagu soo qoro ma xumee niyo mabaax dhul bahantaa taan ku yiri. wuu qoslay wuxuu igu yiri yaa kuu sheegay hata meeshan cid kale hadda lagu magacaabi maayo, madaxweynaha hadba yimid baa meesha qoyskiisa ku naasnuujiye mar reerkaas hata siyuniyo reerkaas aan ahayo degadaa boosaaso waxaan ka shaqeynaya 30 sano buu yiri. 30 sano baan ka shaqeynaya yiri degadaa boosaaso, 5 madaxweyne isku beddelay buu yiri. wiilal baa maaba lagu dalacsiyaa buu yiri oo qoyska madaxweynaha 30 sano ma ana qadeen buu yiri. marka ina adeero maanta ina qadeeyo ninka ina adeerkay markuu yimid maxaa u diidaysaa intaan ku yiri ruuxan saan cadaalad ma ahe waxa weey aqoonteedana ma lihid, xirfadeedana ma lihid, baaritaankeeda ma lihid. maaha degad baa la weeraray, maxkamad baa la weeraray, waxaana la weeraray, qarax baa inta ka dhacay markaa maqriisid. waxa weeyaan ina adeero waa lagu soo qoray qofkan taliyaha meeshu waa jaahil, waxaa laga keenay baadiye waa la qoray ina adeerow kaalay ka barisay wey. nin la yiri ina adeerow kaalay ka barisay sukuuradka uma leh aqoon, xirfad ma laha, ciidan ma soo marin, wax kale ma soo ilaah baan kugu dhaarshay. General Muxidiin taliyaha ciidanka booliska Puntland waa nin reer garow ah. General Muxidiin baa lagu leeyahay. war General Muxidiin anaga reer Puntland fiir anaga reer Puntland Soomaaliya ma indhahana la tilay dadka reer Puntland horta wax cad oo ay arkayaan maxay u dafiraan general xagee ka noqday Muxidiin. war Muxidiin Soomaaliya ninka staafka u ahaa xirsigata odayga dishe asluubaadka haystay asluubta haystay soo ninka staafka u ahaa maaha oo dukaankiisa hortiisa aan mari jiray oo waardiyen jiray. ma ninka staafka ahaa maanta taliyaha ciidanka booliska Puntland ah oo general wali lagu sheegaya farool intuu xidigo ku safay uu leeyahay waa general muxuu xirfad uu leeyahay.
وأنا سكورتي هاجر نبو سكورتي وهاجر نكو سكورتي وهاجر بول بلغة دقي حرسقاتا هل كان مشاركة يكو قادة لغيري نكالو ديش شاوال لغو كان يو جرنا علي إسماعيل isaga waxa lagu yiri dukaanka adeer iibso waxa way biilkaagana qaado waa yahay ninki sukuuratayga staff buu ahaan jiray wallahi kowde manin staff ahaan jiray ba inta dadka reer bariga inay aqliga la yihiin inay waala yihiin iyo dadkan inay gabadhii Saacdiyad gabadha Carab Saalex xildhibaan hadda baarlamaanka ku jirto buugi ay qortay maalin la wareysanayo dhigaysa waxa tir dadkan waa maroodi bay tiri maroodiga marka bir baa lagu xiraa goorta birta lagu xiro dhowr markuu jig lugta siiyo uu ka baxsan waayo marka dama xarig daciif lagu xiraa wuxuu u maleeyaa inay wali birtu ku xiran tahay war dadkan bal General Muxidiin oo anagu shalay aqaanay isagoo wallahi anagu cunug yara baan hormar jiray isagoo xisgaata staff waa dukaanka wax ka iibsan jiray staff security waa security ba maanta waxa lagu leeyahay sagaal gobol amaakeeda booliiskeedu ku shaqeynaya he doesn't know anything about ka aqoon war shalay markaad Cabdullaahi Saciid Samatar iyo Keeraysan niman Interpol ku jiro aqoon laho meel soo maray baan igula xishmeeyay waa keenteen bal ninka xirsiga waa Faroole ninka keenay ninkaas ee darajada ku saxay ee yiri waxa tahay taliyaha ciidanka booliska kanna waa Faroole waa bixishooda kanna waa u kordhiyay oo taliyaha ciidanka booliska ku dhigay kan uu hadda qardha ka keenay oo taliyaha daraawiishta ku magacaabay ee uu adeerkiisa wallahi billahi general baa lagu leeyahay waxa general ku yahay wadadka generaalada waa qoran yihiin list way ku jiraan war Umar xagee general ka noqday meeshan qarnu dumlad ku ciyaar jiray Turkiga war dadkan awood deelaysan walaalayaal ka daayay dadka islaam noqdo dadka way ka xishoonayaan ka xishooda isku duwayaasha 18 isku duwe ee gobolka bari waxa 8 mooyaane 10 kale waxa iskala qoyska madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari waxa iskala qoyska madaxweynaha ayaga oo joogan dad 3 degmo 4 degmo kule oo waliba karkaarti u sii dheertahay karkaar gudoomiyihii iyo ku-xigeenkii gudoomiyihii wax walba intaas 18 isku duwe ee karkaar ay qaateen iyagu dadkan wax ka badan dadkan ma la sixray ma sixray waxa wax ka badan kowde dadkan dawladda Soomaaliya ha u soo gurbato qofkii hadla oo dhawana war waxaan waa ku wadaan joojiyana waxa leeyahay waa Daacish dadkan maxaa qandara iyo galiyay iyo buuraha galgala wax Daacish loo ma jiro dadkan waxa galiyay waxaan joojiyeen qofkii dhaw waxaan jooji waxa weey waa Daacish karbash baa la laacaya niman Aranjan Allah meeshan iska haysto gobol kale ma maamulaan Aranjan day nugaal beesanin reer bari ku qori karin mudug beesanin reer bari walbaa ka say taliyaas ee laboorkaas galkacyo bal nin reer bari loo magacaabo waa ka say 10 jarnaal reer bari jiray kuma qori karaan kowdi gobolka kaliya ee dadka lagu takrifaro dadkooda oo waxa weey dadkii la kala qariyay oo la yiri beelaha ugu badan ba meeshan Puntland degan ee aan kala mashquulino beeshan waxa meeshan qofkan haysto ma ogaan karaan beesha kalena ma ogaan karno waxa qofkan meeshan haysto aan dad ku dhaxgalino taliyaal aan dhaxgalino meel walba anaga dhaxgalino waa gobolkan bari weey dadkii lahaana waxa la yiri waxa tiin bari gardafu waa tiin inta tiin ayaga wala kala mashquulin waxaas waxa loo sameeynaya waxa weeyaan in aan la ogaan halka surata ka qorsan tahay Saciid Cabdullaahi Dil wuxuu sameystay ciyaal yarar oo waxa weeyaan Facebookada uga nacamleeyo oo halkaas waliba reer bari u badan oo halkaas digdigtii damdamta ka akhriyo oo waxa jirin dadka u sheego shirkadii gaarka ah fiir wakaaladii xoog korontada oo dhan qoyska madaxweynaha haysto qoriya waxa idin banay dawladda Soomaaliyeed baa lahayd baan ku yiri oo u tagay gumco ma qoyska madaxweynaha haysto inkastoo maalin uu ka qaado mid cali jibrahil uu keenay uu ku bedelay qoyska madaxweynaha haysto maalin buu xoogaa yara xishoodo gumco mid cali jibrahil ku soo bedelay kowde isku duwaha furdooyinka waa bahalkii qoyska madaxweynaha weey allo abeerka beeline meel walba hay'adaha ayaga wada haysto bas weyntu waa la burburiyay waxa la hoosgeeyay in taaran baa loo geeyay macdanta warwata wakaaladda xoog korontada dawladda Soomaaliyeed baa iska ka leexda maya baalayaal beer ka taray iyo baalki reer baa lagu naas nuujiya baa lagu leeyahay
marka barnaamijka noo sheer gareeya waxaan jeclaan lahaa inaad barnaamijka noo sheer gareysaan fariinteena sidaa dadkan reer bariga ay ku gaari lahayd walaalayaal oo noo sheer gareeya meeshaan wax cadaalad ah kama jirto reer barigii intii wax fahmaysana xilal baa lagu aamusiyey masiirkaas waxay dhaafsanayaan intii wax fahmaysa xilal baa loo dhiibay halkaa mushaar ka qaataliye intii iswaashana kaba afka lagala dhacay oo muxuudiin oo jaahila oo shalay security u ahaa xirsigaataa oo ninkii security u ahaa buul laga dhigay oo yiri halkaa mushaarkaaga ku qaado ninkii security ku ahaa baa wuxuu ku noqonayaa bahalkii muxuu ahaa ilaahay u naxariistay oo waxa weeyaan markii dambe ilaahay u naxariistay inuu dhintay baa ogaaday ma fahantay baan maqlay ilaahay u naxariistay baa waxaa la yiri security u ahaa baa la yiri dadkan ku durduri reer bariga ah waxba kala ogeen oo ariga ah ee geedka noogu xiran maalin baan arinjaan nin waxay u keenaysaa kii ugu liita weliba qoyskaas kii ugu liitay bay kasoo saaraysa xataa nin jiro cali xaaji hadday nimankaas soo saarleed waxba aan leed ilaahay ka baqaayaba xoogaa baqdinta ku jiro kii ugu liitay bay soo saaraysaa waxayna usoo saaraysa waxa weye wax walba ha ku sameeyo musuqmaasuq oo dadkan karbaash hala dhaco kowdhe hadda cunug beeldaaje ismaaciil wiil walaalkiis qaybta wuxuu ka shaqeynayay wasaaradda kalluumeysiga degada uu joogo waa xiran yahay waa la xiray waa isin dhan walaalkiisa waa la xiray maa la xiro dadka kale ilaa baadi ku dhaashay nin aan reer bari ahayn meeshaas laguma xiro kii wax yar sameeyana waa la xirayaa kii iswaalana kaba afka laga gelinayaa kii kalena waxaa leeyahy waa daacish buuraha galo baa loogu sheekeynaya hadhow dadka marka soomaaliyay waxa weeyaa reer baryow dadkan iska celiya walaalayaalow meeshaan adheysaan nabadeenaan ku ilaalsanaynaa walaalow ganacsigeena ku ilaalsanayna nabadna idinma taal ganacsina idinma jiro ma nabadda jidha maxay taa boosaaso annaga hadda ka nimide nabadda jidha askariga daqiiqad taagnaan kara yuu yahna askariga daqiiqada taagnaan karo askarta degada waxay taagan yihiin suweyto waxaan ku iri dadkan taagan maxay yihiin may fadhiistaan oo nastaan waxaa la ma fadhiisan karaan dadkan hal daqiiqa ma fadhiisan karaan oo maxaa dhacay xabad baa afka laga gelinaya hadday fadhiistaan maxaa dhacay dadkan mudug iyo baa laga keenay nugaal waxa weeyaan dadkii wadankan laabaa xabad afka gelinay oo daacish lagu shaabadeeyey iyo al-shabaab baa lagu yiri controlkan tagay kowdhe waxa weeye birta xataa way jaban tahay 2 bilood kadib baan kusoo noqday war birtaan ma iska hagaajisaan baan ku iri maalin dadka canshuur baa ka qaadaanay bise facebookyada dhignaa intaan duumno waxaa la yiri waa hagaajinaynaa inaad yaro tiriibkii labaad aan soo marayay wallahi waa la hagaajiyey war dadkan wax iskala hadlay waayeen qof la hadlo oo runta u sheego bay waayeen saarasoonta hadda ciidankan saarasoon lagu dhahay horta BS iska daa BS waa reerka madaxweynaha oo soocan wey saraakiisha waa iga kombiyuutarada dadka fadhiya waa iga cid walba waa iga hadda saarasoonta nimankan oo beeneeye qow laga iibsaday admiraalkaas ugu jiro cid kale taliyaha guud ee admiraalka baa lagu qanciyaa oo la tusay kowdhe berigu cabdulle cali maxamedkaas joogana 400 oo reer mudugu qortay oo hadda joogo hadda caawana hadda xogta ugu dambeysa caawadaas tviyada ka daawada caawo 400 oo reer qardhooda la xareynaya oo ciidan saarasoon loo tababaraya 400 oo waxa la xareynaya ciidan saarasoon lahada kuwa afkiga qasay soo wacayo lahada kowdha 400 waxa way kii la keenaba inuu reerkiisa keeno meesha kii la keenaba keen 400 hadda fiiri xasan abgaal baa tribka dambe la keenaya wasiirka maaliyadda ee hadda buugga loo dhiibay ee la leeyahay dadkaanu ka gadana cidka reer bariga laga gadaya tviyada laga soo sideynaya dadka laga gadaya wasiir wax qabto weeyaan leey facebookyada uga ololaya wasiirada lagu sheegaya waa 2024 inuu soo baxo 400 oo reer nuwaalada isna qoraya hadda 400 oo reer qardhooda qoran oo caaw la xareynaya oo ciidan saarasoon loo tababaraya war ciidanka saarasoon yaa haysta matqana wallahi oo billahi oo tallahi waa dhaartay saraakiil aan aqaan oo inay hebel u aqaan oo tirada ka bato oo tababara haysto baan wallahi waxa maamulay wiil yar oo reer mudug cabdulle uu warig qoray war xirada yaa ka ah baan ku iri taliye saariga cunugan taliye ka ah
warheed taliye cunugan madaa taliye kaa anaa taliye kaa mareer mudug baa taan ku helinayo isugu yiri adeer cabdiweli waa ku keena meesha waan ku heli miya kowle ayagii waxaan ku uri war idinkaa ninkaan ka darajo sareeyo oo ka bahalki sareeyo oo ka tababar badan see ninkaan taliye u noqday waxay ninkaan dib madaxweynaha soo qortay annaga waxa weeyaan beelahana keensaday meeshaan mushaharkeena 300 iyo xoogaagan ku qaadanaa baan adeero madaxweynaha ninkaan soo magacaabay waa naga yaryahay amarkiisan qaadanaa amarkiisan ku shaqeynaa waraabtiyaalo dadka laga xishoodo dadka ka xishooda bilaa calaykum dadkan way iska kiin dhicin karaan dadkan dad tolo way ehel way nin walba wuxuu leeyahay meesha yartaa nabadaada ku ilaalso ganacsatadan waxay isleedahay nabadaada ku ilaalso afartan oday ay mushaar ka siisaan oo mushaaraadka bangi madaxtooyada ka qaato meesha waxay isleeyahay ku ilaalso nabadiina iyo xoogaagiina yarkaa cadaalad way imaan doontaa 30 sano lagu jiraa cadaaladda imaanaysa maxay tahay 30 sano war dadkan iska dhiciya meel uga soo wada jeesta maalin walba 4 wiil ee la hadasho dadkan oo tiraado ruuxan naga joojiya yaanan intii la tukooro daacish iyo lagu tilmaamine oo gooni loo saarne idinkoo midaysan oo waxa weeyaan wada midaysan oo reer bariyo midaysan ama reer dadkan dad fiican boo laga helay reer Puntland oo midaysan dadkan la hadlo waxa tirada war federaal weeyaane annagu garow waxba xil kama qaban karnee gaalkacyana xil kama qaban karnee qardana xil kama qaban karnee magaaladan walaalayaal annaga iska leh magaalada xilalkeeda annagu aan qabsano degadaas garacad hadda waa la dhisayay bal taliyaha degada iska daani reer bariya nin reer magaalada laga dhigo waa kaasay markuu ka yaabay Axmed Karash baa intuu ka yaabay nimankan oo ka yaabay markuu wasiirka arrimaha gudaha ah wuxuu yiri adeer golaha deegaanka dhulbaanta lagu soo daro boosaasood idinka waa iska joogtaan markaas waxay dhaheen maxaa see loogu diri karaa idinka midka meesha degan buu yiri laba xubnood baa ku leeyihiin nin baa lagu soo daray hadda golaha deegaanka ku jiro waa ninka uu ka yaabay Axmed Karash wuxuu yiri waxaan de magaaladan cidna ma leh marka yaana ka maqnaan harti waa u dhan yahay nin baa loogu soo daray hadda ma aqaan de Axmed Karash madaxweyne ku xigeen weeyaan tariibkan inuu 2 nin markii hadda doorasho caadiga dhacdo inuu 2 nin keeni doono u maleyn doona oo dhigi doona 2 nin ha lagu daro marka magaaladan waxa weeyaan walaalow federaal weeye Puntland gobol walba qofkiisa iska leh waxa weeyaan goboladii kale xataa fiiri dadkan hadii xataa almiino oo waxa weeyaan gobolkan aleedin waa gobolka ugu dhaqaale badan halanaas nuujiyo de garowan waa caasimada Puntland dadkan naas nuujiyo markaas wiil ka waran wuxuu soo fadhiisanay wuxuu ku leeyahay xamar looma dhama magaalo reereed way war garowe magaalo reereed ba misreer Puntland ba u dhan waxa isku duwa jooga iyo waxa bugaag wata iyo waxa feelasha wata waa reer garowe oo Allah yaktub wala yaqra oo wadada barxada taagane marka walaalayaal dadkan iska celiya dadkan waxa weey wax u sheega reer bari oo midaysan dadkan waxa u sheegan ha iskala hadlaan tan guud ee Puntland cadaalad darada Puntland ka jirto fiiri waxa taa wasaaradaha waa cadaalad daro baxsan ilaahay baa idinku dhaarshay wasaaradaha ugu muhiimsan eeda oo dhan Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ku safay qoyskiisa wasaaradaha eego dhan qoyska madaxweynaha ku safan inta kalena ma jirteen ba ku safan haddii ay noqoto kowde waxa lagu leeyahay sanaag maxay u go'aysaa u cararaysaa sanaag maxay meesha ku haysataa laba wasiiro biya bay ku haysataa oo hadda isku shaandheyntan ku bixi doona Saciid Cabdullaahi Dani isbuucan uu sameeyay oo qoran Saciid Fiisigis iyo ninkan buu waxbarashada maqaar saarka labadu waa baxayaan marka dadkan walaalayaal dad sixran ba ma dad lugaha lagu dhagan yahaa dadka de kii hadlana waxa way karbaash la dhacayo muxiidiin looga dhigay la yiri dadkan karbaash la dhaco ariga darajo loo suro la yiri waa jarnaal nin security ahaan jiray bari waa jarnaal hadda kan daraawiishada keenay qarna dumlad isaga ciyaari jiray oo nin turub meeshiisa isaga ciyaar ahaa waa la yiri kaalay ciidamo bahalkay
maanta beeshaadaa meesha qabsatay hadduu nin aqoonaya yahay oo wax kala og yahay faroole cabdiweli caligaas baa u yeeran lahaa. cabdiweli wuxuu keenay kan jaahilka hadda xildhibaanka lagu daray xildhibaanada lagu daray reer cabdulahooda buu yiri kaalay dadkan bari xasuuq oo waxa weeyaan ciddii iswaasha afka cag ka geli. magaaladaas waxay u qaybsan tahay BS iyo Sarason. war magaalada waxa laga laayahay Sarason tana banaanka u saara, BS tana banaanka u saara. wasiir baa is aragna waxaan ku iri niyow mushkiladda magaalada Boosaaso haysato waxa weeyaan labadan ciidan baa mushkilad ku ah. xataa nimankan wax qarxiya yey raadsanayaan, shacabku miyay raadsanayaan baan ku iri. isu yiri maya, nimankan waxay raadsanayaan waa Sarason iyo BS soma. walaalayaal magaalada ka saara, mareera geeya, kuwana qow geeya. waxaad u samaysaan magaaladan ciidan booliis 300 oo wiil u tababara, bal markaa hal arko cidda wax leynayso. wuxuu yiri niyo waa runta, fikirkaaga waa fikir saxan, waa fikirkan ugu wanaagsan, laakiinse waxa weey madaxda dalkan ma ogolo. Saciid Cabdullaahi Dani waa nin Aaranjaan buu wuxuu ugu jiraa bahalkii jeebka. maalin Nairobi way geeyaan, maalin waxay geeyaan maxaa Imaaraadka, waa nin jeebka ku jiro. marka waxaan aan ka sheekeynaysa wuu og yahay, laakiin ma rabo weeyaan. haddii intaa la sameeyo dadkan ayaa wax fahmaya. hadda fiiri waxaa la bilaabay in lagu ciyaaro. fiiri waxaa lagu leeyahay ciidanka BS oo fashiliyay qarax inta miina marka hore meel lagu aaso oo la sii diyaariyo baa kaamirooyinka loo keenayo. waxaa la qarax baa fashilinay. waxaa la ogaaday dadkan reer bariga inay ka baqaan qaraxyada iyo dhibaatada. TV-ga habeenkii ka daawanayaan. TV-ga habeenkii marka ay ka daawadaan waxay leeyihiin oo dawladdu waa shaqeynaysaa, dawladdu qarax bay qabatay, dawladdu waatan ciidanka dalaayadaha ku boodo, ciidanka BS taa qarax qabtay. war xageedu qaraxan ma horaa loo sii aasay. falsafad waxa weeye waa hore wey la isticmaalay. waxa weey dadkaana waxaa lagu maaweelinayaa yiya BS taa waa soo aragnay dabada waxay kula jiraan halkaas karaan ka dayan ku yiraahdo waddankan oo dadkan ka xishooda kowde. wallahi nin walba oo aan iskulano dawladdan iyo kale xilka qowdahay. war meesha saana baan ku iri ka qaban ma xil wax aan ilaahay ka furtay islaamkiisna saxiix ma yaan ku iri. markaan xil qabto soo wax cadaalad darah ma saxiixay. wasiir fiiri arrimo gudeed oo ka soo joodo sol ba waxa leey waxa saxiixda barnaamij horumarina oo degmada Eyl ah, isagoo magaaladiisii Boocama harad looga dhimanayo oo ceel u qodneen ba waxa leey waxa saxiixda Eyl in degad loo dhiso. dhihi maayo war tii aan ka soo jeeday anigoo wasiir arrimo dibadeeda baan arrimo gudeeda ba waxa weeyaan anoo ka soo jeeday degmadii aan ka soo jeeday ba bilaa ceere ka daayay kibirka dadka ee qalin ku duugaya mushaarkiisu fiirsanaya. wasiirka iskaashiga xiriirka caalamiga ba waxa leeyahay kaalay waxa sameeysa qandaraaska noocaasa buurtilo u saxiix laamiye in loo dhiso ama bursalax. markaas qalin ku duugaya isagoo qandara ka soo jeedo oo aan macnaha iska daayay wax kale isbitaal aan lahayn. albaabada lagala baxay isbitaalkii ku yaala meeshaas. ilaah baa idinku dhaarshay ma noocaas aan dhaqmaa yiri waa qosleen wallahi. axmed karaash markuu wasiirka arrimaha gudaha hadda barnaamijka maalin walba wuxuu daafuraa barnaamijka GDP oo hay'ad ay bixinayso, hay'ado bixinayaan oo degmooyinka lagu horumarinayo. hal degmo uu leeyahay oo gobolka Soomaaliya ama dhulbaanta degan yahay kuma jirto. aqli xumadiisa intuu suud maalin walba soo xirto buu soo fadhiisanayaa wuxuu leeyahay horumar baanu gaarnay. war meesha aad ka soo jeeday dadka aad ka soo jeeday ceel biyaa ma laha. kan hadda aniga ilmaadeertanahay wasiirkan kalluumaysiga Jayna la geeyay maalin waxa ka xiyay bahalkii muxuu ahaa Saciid Cabdullaahi Dani. ilaah baa idinku dhaarshay fiiriya kontraad wuxuu siixay Jayna u soo siixay inuu badda u fasaxo. wuxuu siixay in Eyl degad laga dhisi doono macmala iyada oo meesha uu ka soo jeeday caruula bilaa degad ay tahay oo ka istiraatiijisan tahay oo kaana badda cas tahay.
baa wuxuu qalin ku duugayaa in ay loo sameeyo bahalkii markaasuu qoslayaa wuxuu leeyahay puntland horumar bay gaadheen kan wasiirka iskaashi hadda bicdiyahan eeg maalin hadda barnaamijuu soo gudbinaya wargoldag ku dar baa laga la'yahay barnaamijkan iska daa beel kale maalin wuxuu leeyahay puntland oo laamiye u sameynaa iyo bursaalax markaas facebookada soo dhigay waxay leeyahay bursaalax baa laamiye u sameynaa war bursaalax midka laamiye u sameeyay barnaamijkii hay-adaha waxa weeyaan qalin ku dugteen nin maskiina oo waxaa tiraadeen kaalay dadkan waa dad bahalkii annaga noo sameeya war dadkan waa dad bahalkaysan waxaas waxaan ku wareynay waxaas wax ka jiro waxaas wax aan geli karo aniga ma ahan ku wari walaalow alxamdulilah aniga biilkaygana waa haystaa nolosheedana ilaah baa i kaafiyey bariis iima geen baan ku wari inaan aakhire la iisoo taago dad xil ii magacaabay oo idhahayo war ninkaan noo doorta markaan maanta beri ka maalin beesheeda aan kasoo seexdo warqado oo igu aaminay inaan beel kale oo dheregtay inaan ugu daro oo dhaho tanna ku darsada kan wasiirka waxbarashada maalin alla keena iskool buu tuulayn cidlo ah oo garowe ku yaal oo cidlo ah oo cidna deganeen oo dadka degan birta dheer iyo garowe wallahi 3 kilomitr bay u jirtaa iskuulka garowe u imaan karaan buu maalin wuxuu dhagax dhigayaa iskuul meeshii uu ka soo jeeday ceelbuur iyo hadaaftimo iyo waa baaba qarkay ciyaal ku joogaan waxay gurayaan xaabo markaasuu isla fiican yahay hadhow marka xilka laga qaadana wuxuu leeyahay muxuu ahaa saan ma ahayn saan ay ahayd mar kale halii magacaabo marka walaalayaal reer puntland cadaaladdu ha shaqayso dad kale leeyahay waxay dulmayaana ilaah baa idinku dhaarshay isku noqda waxaa dowladda maxamed siyaad bare 30 sano dadkan la caburinayay ee waxaas la sameynayay ayay dadka marqo qaxeen haddii aad maanta ka aamustaan dadkan waa qarxayaan dib dambana la iskugu keenmaayo dadkan dad ehela weye adduunka isku nabcanaanayaan si dambe oo laisku aamino way adkaanaysaa hadda waxaa dadka reer mudug ee diidan yihiin waa waxaan oo kale saddexda madaxweyne uu sameeyay waxay diidan yihiin meesha inuu reer jeeb ku rito hadda reer galmudug halkan fariin baan uga diray walaalayaalow maamuladoo dhan baa reer jeebka ugu jiray dulqaad wallahi wax kale ma diidana waxay diidan yihiin inuu reer jeebka u galo intay goor tahay bay leeyihiin wicistiga daaya walaalayaalow ma garateen marka wax kale ma diidan waxay diidan yihiin in sidan ay noqoto maamuladoo dhan walaalayaal wasaas nabadiina ka raaco qorqorkiina iska raaco xaafkiina mid u jaba baan leeyahay marka aniga waxaan ka hadlayo wallahi suma wallahi wax inaysan ahayn aan iska mala awaashay ama qof ii sheegay muddan anigu facebooka ku jiray weli waxaan kama aan hadlin waa tagay deegaanka waa soo eegay wasaarad walba waa booqday xarun walba waa booqday taliyo walba ciidan waa yaqaana waa wada sheekaysanay waa saarnay kulli waa ay reeqaan waxay ku leeyihiin waxa tahay nin wax kale oo saan cadaalad ma ahay ugu leeyahay maxaan sameynaa ayay waa kula saan cadaalad ma ahay maxaanu sameynaa dadkaasaan isku nacayaan ku walaalayaal ka bedela maalin ciidan hadda ciidan madaxtooyada waxa lagu xareeyay xurgoble oo yiri waa xero fiiriya xurgoble meel cidla ah oo boora oo dawladdiista aan la ogeyn oo Cabdullaahi Yusuf xaaray baa waxa la yiri waa xero armo oo akademigii UNDP do ay dhistay ee dawladda federaalka u sharciyeysan oo akademig beesha caalamka aqoonsan tahayna albaabada la isku dhuftay Sheekh Cabdullaahi Dal wuxuu waxa oo dhan ha aadan xurgoble ku xaroodan waa meel cidla oo boora qalab ma haystaan waxa ma haystaan caafimaad kama jiro fiir xerada cirmo waxa leedahay dhakhtarkii bay leedahay qalabkii baa yaal hatta barkad biyaha xerada xurgoble kuma ma leh barkad biyaha laga cabo harabka hatta meel biyaha ciidanka ka cabaan ma leh booyada loo soo dhaamiya markaas waxa laga tagay xeradii biyaha lahayd
qasabadaha lahayd oo musqulaha lahayd fiiri oo caafimaadka lahayd takhtarki lahayd oo wax walba lahayd baa qabiil looga tegay iyo beesha madaxweynaha ma aha baa xera cidla oo waxba jirin oo suuliye aan lahayn oo biyo aan lahayn oo qasabad lahayn oo haraad meesha ku dira ciidanka baa yiri oo lagu naasluujinayaa madaxweynaha ka soo jeedo Saciid Cabdullaahi Dani ku amray in la geeyo meeshaan walaalayaalow waxa weeyaan dadkan wax gacanta ugu jiro male ninkii aad aragtaan oo reer Puntland oo qoyska madaxweynaha aan ahayn ama qoyskaas nugaal iyo mudug degan oo Maxamed Salmaan aan ahayn oo dawladda taageerayo waa labo hadda idin sheegayay waa nin xil haya oo isaga xil ka haya oo meesha biilkiisa ku ilaalsado inin walaalkiis xil hayo kowle iyo nin aan xil heeno mushahar ku qaato oo mushaharkaas yiri iska cuno ku qayl meesha oo iska qaylo facebookada naga amaan fiiri hal tusaale ay soo qaaday Saciid Cabdullaahi Dani inuu sax xataa fiiri dadkan xataa in lagu tuntay waxa ku ogaanaysaa campaign markuu ahaa aniga waa la soo wacay wallahi inaan bay ku sheegay oo billahi oo tallahi niman u dhadhow ay soo wacay aniga isaga ma soo wacin u campaigner garay baa Saciid Cabdullaahi Dani waxaan ku yiri Saciid Cabdullaahi Dani khudbadiisaan dhageysanayaa anigu khudbadiisaan dhageystay khudbad fiican buu ku hadlay waliba magaalada Boosaaso dulmiga ka jiro ka hadlay haddana waxaan ogaa lugta u laaban anigu aqartay waagu maamulaha ahaa baan ogaa aniga Boosaaso Nawaawi u haystay lugta u laaban baan ogaa ma fahantay niman reer bari oo badan baa campaignerka ku biiray oo yiri reer Puntland waa dad isku mid ah Saciid Cabdullaahi Dani maanta anfacayo aan ku campaign gareeno hal nin fiiri oo beesha madaxweynaha ahayn oo dadka campaignerka u sameeyay oo xil u magacaabay isoo sheegay isoo sheegay waa kasay dadka u campaign gareenayay hal nin oo u magacaabay isoo sheegay waa kasay nin u magacaabay male kulli beeshiisa inta u campaign gareenaysa lagu safay wixii reer bari ahana wixii aan laga maarmi karin waxa la mushaharkiina halka ku qaata cidna iibin meeshay kuwii kale loo xiriir bax yarkii ma dhibaan baa ugu dambeeyay hadda farmaajo uu yeeray oo warfaafinta geeyay inta u dacwooday farmaajo marka walaalayaal waxa ka hadlayna way cadaaladda guud ee cadaalad darrada guud ee Puntland waa ka hadli doonaa mar dambe barnaamijkan waa sii wadi doonaa YouTube-kayga waxaad ii sameysaan walaalayaal subscribe ii saara Ali Abdullah Media way Ali Abdullah Media subscribe ii saara halka igala socda wixii comments halka igu soo qora iyo wixii leega wixii ka gubanaya cadaalad darradaas raayigooda waa qaadi doonaa barnaamijyadu way badan doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh